agaasimaha ciidamada dambi baarista dalka Mr. Maxamed Ibrahim Amiin ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray darbi cusub oo lagu wareejiyay dugsiga sare ee Sabule ee magaalada Wajeer. Darbigan cusub ayaa ah mid muhiim u ah sugidda amniga dugsiga kadib markii muddo la kulmayay caqabado ay ka mid yihiin boobka dhulka, xatooyo iyo falal kale oo amni darrada. wixii la soo maro idil wixii waxa ka soo sokomaray midda maanta aan joogno maantana waxa waaye waxaan alxamdulillah mahad ilaahay u celinayna midda labaad mahad u celinayna waxa waaye walaalkeen Maxamed Ibrahim Amiin alxamdulillah kalsooni weynaati anaga aanu hayna hadii aan anigoo ku hadlaa afkii wasaasiga caruurta afkooda aan ku hadlaa maxay PTH mananahay marka ay tahay mahad weyn badan aan u celinayna maayo caruurtayna marka hore gacan kuma jirin security ma haysanin nabad ma haysanin iskuulka amaan ma haysanin oo daan raadinteedana muddo badan ay noo qaatay sida xaqiiqda inta principals oo iskuulkan isu soo martay anigu naftayda waxaan joogaa saddex principal aan joogaa oo inta PTA ka ay maraan board ka haybo marka ay tahay inta soo principal aan soo marnay inta waqti kastaba baryadayna waxay u badneed in iskuulkan aan u helno deyr alxamdulillah ama fence lagu oodo kiino zurigeli alxamdulillah waa asaga Maxamed Ibrahim oo marka hore iskuulkana ka bilowdo inta ku wax bartay markaas ka tago ilaahay wax u yeelay aqbaas u leeyahay ma tuurin iskuulka hadana mar walba gadaalaas u soo fiiray oo daan kaliya maanta iskuulkaas u ooday maayna Maxamed Amiin iskuulkan inta kale guud ahaan aad u qabtay Alumni sahay inta soo gooracay iyo walaalkii professor Mayo inta ma shariicaal ka qabteen inta iskuulkan dhaxdiis aska qabtay cadad ma lehen xafladda furitaanka mashruucan ayaa si weyn loogu muujiyay taageerada iyo mahadnaqa loo hayo agaasimaha ciidamada dambi baarista dalka iyadoo maamulka dugsiga waalidiinta iyo bulshada deegaanka ay si wada jir ah u bogaadiyeen dadaalka uu muujiyay waxaan ku ilaahay un baan ku baryaynaa sidii dadkii hadoo hortay ay sheegeen laakiin waana intiga waxaan warsan rabaa ninkii adigoo qaawan maro ku xiray adoo qaawan oo waxaadu kulli banaanka ay yaalaan ninkii maro ku xiray maxaas ka mudan yahay mahad maan walba mahadina laakiin anaga bil aadanka aad iyo aad aan u abaal daranahay maanu alla barina walaalkayn Amiin muraadkiisa dhib muslim iyo macsiib intaan ka ahayn inaas wixii niyadiis ku jira ilaahay u saqira ma faataxadu marna wala laaro bismillaahir rahmaanir rahiim bana Amiin annaga sidii la sheegay iskuulkan fence waa helnay خير الله يدنسيه أديجي أنتي كل قبضتي أنتي كل سعودتي كل خير الله يدنسيه. I don't know what word to use to explain the work done by our DCIO, Mr. Amiin. First, I want to thank Almighty Allah for bringing this son of ours to this great position of being the DCIO nationally. It is a rare opportunity to have a Somali to be DCIO. One day I went to made a courtesy call to his office and greeted him. He told me, I asked him, are you the first Somali or to be in this office? And he told me he is the first Muslim to be appointed as the DCIO of the Kenyan government. Right from the independence. Don't we have the courage to applaud our president who has appointed our son from Sabule Secondary School to this great position, to the level that he has really brought development to us. We need to applaud our president for appointing this great man who has school at heart. Thank you very much. Allow me, sir, from the depths of my heart and on behalf of the entire school community, to extend our most sincere and profound gratitude to our alumni, whose love and loyalty for this school remain unmatched. In particular, we are eternally grateful to our very own alumnus, Mr. Maxamed Ibrahim Amiin, currently serving as the Director of Criminal Investigation. It is not just a wall,
It is not just what he did, but what he's going to do, and hopefully those of us who are also alumni of this school will also take his example and do even better. You see, change does not come from everyone. It comes from a person or a small group of people. And we thank him for being an agent of change and for showing us that one man or one person can do a lot. So thank you very much, Bona DCI. Welcome home, and please continue with the good heart that you have for this region. You know very well that it is not only Sabule, but he's doing a lot of other projects in the county, in my constituency, and in any other constituencies. I know of places like Garissa, like Kakamega, where he has done things, which shows he is not limited to Wajir. He has a national outlook, and for those of us that much has been given, much is expected of us, and it is good for us to give back to our communities. Mr. Amin oo ka hadlay munaasabada ayaa uga mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta mashruucan, isagoo ballan qaaday in mashruucyo hor leh oo horumarneed uu ka fulin doono deegaanka. It is indeed my profound honor and privilege to stand before you today at my beloved alma mater. That is Sabule Senior School, for the handover ceremony of the newly constructed perimeter wall that we officially opened this morning. This event indeed evokes a very, very deep sense of nostalgia as I reflect on my own experiences here from 1981 to 1984 during my A-level studies. I am also overwhelmed with pride as I witness the remarkable development and progress this esteemed institution has achieved over time. First and foremost, I would like to extend my deepest gratitude to Mombasa Cement, the hardworking Sabule alumni, and all of our generous well-wishers whose invaluable contributions made this essential project a success. This wall, ladies and gentlemen, is not just a physical barrier, but it symbolizes our collective commitment to ensuring the safety and security of our students, and ultimately providing them with a very, very conducive environment for their learning and for their growth.